الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن إذا الهانتينبا halkaan ku suganahay waa dugsi kamida dugsiyada sare ku yaala magaalada Hargeysa dugsigan oo lagu magacaabo Abu Hurayra Secondary School dugsigan ku qaada dhigi doono tayadiisa waxbarasho iyo taariikhda mugga weyn lagu leeyahay Soomaaliland barnaamijka waxaan la soconsiin doonaa anigoo Mukhtar Cabdi Qumane daawasho wacan Secondary School Abu Hurayra waxa ku yaala dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Hargeysa dugsigana waxa uu ka tirsan dugsiyada hormoodka waa Soomaaliland hadaba dugsigana waxa la aasaasay markii uu bareefadka ahaa 93kii dugsigan waxa dhigi jiray aqooyahankii weynaa Cabdilaahi Muuse Qaalib dugsigan dhismaha iskuulnimadii waxa la bilaabay 2008 dugsigan dhismihiisu waxa uu dhamaaday 2009kii hadaba iskuulkan waxa dhisay ardaydii ka qalin jabiyay marka uu bareefadka ahaa iskuulkan oo muddo badan aan saawsi dhisnayn ayaa noqday horyaalka Soomaaliland kana qayb qaatay kaalmaha sare ee Soomaaliland iskuulkan wali waxa ka maamula aqooyahankii weynaa ee Cabdilaahi Muuse Qaalib iskuulkan oo booqasho ku tagnay qaybtiisa inamada nasiib wanaag waxaanu la kulanay tartan aqooneed soo socday muddo aad u dheer tartankaas oo ardayda Abu Hurayra kulamo badan soo wada yeesheen tartankaas oo ahaa finalkii ugu dambeeyay ee labada class ee u baxay finalka tartankaas muddada dheer soo socday oo nu weydiinay macallimiintii daadihineysay tartanka waxa hadaladiisii haddaan isku dayo waxa weeye su'aashaas haddaan ka jawaabo tartanku wuxuu socday muddo 50 maalmood gaaraysa ku dhawaad 2 bilood isla markaana waxa weeyaan si fiican buu noogu bilowday noogu dhamaaday muddada tartanku socday waxa caqabadaha ma kala kulanteen maya waxa weeyaan wax caqabadaha aanu kala kulanay muddada socday 50 maalmood ahayd ma ay jirin waxaan dheef wanaagsan ahayn ka lamaanaan kulmin barnaamijkan tartanka aan sameeysan ujeedadiisa guud maxay ahayd sidaynu ka wada warqabno waxa weeyaan ardaydeena waxa weeyaan waa barnaamij lagu dhiirigelinayo si ay wax u akhristaan kordhiyaan dadaalka imtixaankooda iyo natiijadooduna ay wanaagsanaato si wax kaanu ka duuleynay kaasoo haya si aan ardayda ugu mashquulino wax dantooda tartan baan u sameynaa ardayda midhihii isdhexgalku way noo muuqdaan ma isleedahay ilaa iyo xad waxa weeyaan waxa ay ardaydu ku barteen waxyaabo fara badan inay ardaydu ku dhiiradaan inay markaas waxa weeyaan ay jawaabaan inay ku dhiiradaan inay wax akhristaan inay ku dhiiradaan inay isdhex galaan oo ay tashadaan oo ay markaas waxa weeyaan wax wada qabsadaan aad iyo aad bay markaa taanaynu gaarno ka loo ka maqneen macallimiinta dhiga iskuulkan Abu Hurayra ugu tagnay kalaasyada ay ka bixiyeen sharaxaadda macallimiintan oo furfurcoon shaqadooda macallimiintan oo bixinaya ardayda ay u dhigayaan sharax aad u xeel dheer una faahfaahinaya maadada ay dhigayaan macallimiintani waa kuwa ku caan ah maadooyinka ay dhigayaan iskuulkan waxaanu ku aragnay xaalad ka duwan xaaladaha iskuulaadka kale iskuulkan waxa ku dhex yaala masaajidkaas ee ardayda Abu Hurayra kaga faa'iideystaan aqoon kororsi uguna faa'iideeyaan macallimiinta dhiga iskuulka iyadaaba cibaada xadiidkaas waa u daliil in baryadu ay tahay cibaado وعكلوا دليل أبوكر والدليل قوله تعالى هذا الكلام القرآن كيسه وكيري وقال ربكم ربكين وحيري ادعوني إبريا وفقع ما يتاكتو إبريا ويديستا وحاو بانتين أستجيب لكم واردك أجيب واردك أقبل الدعاء داس halka daawadayaal halka waxay noogu dhamaaday barnaamijkan aan ku qaada dhiganay tayada waxbarasho ee iskuulka Abu Hurayra Secondary School daawadayaal barnaamijka xiga intaan iskugu iman doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh